waayahay waa Ismaaciil Xirsi Cigaalo idinla mar kale ku soo dhawaada warbaahinta GS Media qodobada aan idin haynana waxa kamid ah Saciid Cabdilaahi Deni arbacadii khudbad uu ka jeediyay wimbarka madaxtooyada Puntland oo muran iyo hadal hayn badan iyo ismaandhaaf iyo dagaal maryaha la iskaga jeexjeexay ka dhashay baraha bulshada ee dhalinyarada reer Khaatumo iyo reer Puntland waayahay wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka oo maanta talaabsanayay wadadii tabco halkaas oo uu ka dhagax dhigay wada 30 kiiloomitir oo kamid ah qaybta dhagaxa daloola waayahay qodobada kale aan wararkayda ku hayno waxa kamid ah shirkii gaashaamo iyo maxaa ka soo yeeray qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan oo idin haynaa soo dhawaada daawadayaal mar kale waxaan ilaahay subscribe YouTube-ka siiya share garee barnaamijkan hadduu ku soo gaaro waan ku horeeyay ee arbacadii la soo dhaafay khudbad uu wimbarka isla taagay madaxweyne Deni ayaa waxa ka dhashay muran iyo ismaandhaaf iyo hadal hayn ka dhashay baraha bulshada dhalinyarada reer SCC Khaatumo oo runta ogaaday maanta waxa ay tahay amaba lagaga gar helay markii ay halkaas ku garnaqsadeen labada dhalinyaro oo iska soo horjeeda maxaa kamid ah hadaba ereyada wad ila dhageysan doontaa kuwa kalena waa ku hayaa bal hadda halkan ila yartaawo inaad Deni maxaa ku khasbi karaa inuu ka hadlo dagaaladan iyo arrimaha SCC Khaatumo iyo Soomaaliland ka dhaxeeya what benefit uu soo ugu jirtay inuu ka hadlo maxay tahay waa madaxweynaha Puntland heer su'aasha waa su'aal qurux badan madaxweynaha Soomaaliya ma xataa shaqo kale ka hadli kara xataa shaqo dadkan waa loo dhaariyay inuu ka hadlo weey laakiin madaxweynaha Puntland Deni isaga maxaa ka galay waxa Khaatumo ka dhaxeeya Soomaaliland horta taas waa su'aal qurux badan Stuwaniw inaad 1998 Puntland waa meel wada dhistay mubahante matalaad bay ku leeyihiin Puntland xildhibaanna u jooga wasiiraha ku jooga dastuurkii wali lama kala guran wali lama kala saaran Saciid Cabdilaahi Deni inuu ka hadlo inaad waa musti weey inuu ka hadlo soo madaxweynahayagii inuu ka hadlo waayahay aynu halka ku dhaafno waxay la tahay ka dhirigsanteen qaabka loo garnaqsaday iyo siyaabaha kala duwan ee looga hadlay halka waxay la tahay anigu hadii aan ahay garyaqaan ka garnaqi kara arinta dhalinyaradii reer Khaatumo runta loo sheegay sababtu tahay 1998 maalintii la asaasay Puntland waxa la yiri waxa nala soo hoos fadhiisateen bileed ay ku jiraan sool oo ah laascaanood iyo meelo kamida ceergaba adigteen waayahay maantana dastuurkii maalinta la qoray waa mid qoran buu yiri waa mid qoran mataalatigiina waa ku leeyihiin haday baarlamaan tahay hadii ay madaxweyne ku xigeen tahay haday arrimo kala tahay iyo haday ciidan tahayba waxaad ka mid noqotay sida waxaad kaga mid noqotay Khaatumoy dad ilaahay ka sukow ay iska leeyihiin ma jeerteen iyo reer Puntland taasi aniga waxa waxa weeye talo un baad leedahay cidii ka dhicin jirteena anagu un bay ahayd marka horeba qodobka hadii aynu halka imika kaga nimaadno idinka commentiga ku soo qori doona wixii faahfaahin dheeraad iyo qof waliba sidoo u arko waa marka aan caadifadii reernimo loo eegine mugdiga ay gudayaan reer SCC Khaatumo afarta oday ee duub kale u horkacayaan iyo inamadan yar dabada laga soo cayuuminaya mar baleeyay cadawgiina waa isaaqay halka istaag masiirka iyo ku talagalka ay leeyihiin maxay tahay de waa waxba masiir iyo ku talagal iyo higsi meel muuqato oo farku taabashada loo socdo umay hogaamin hadaba dadkan maanta dagaalka ka ridil asxaano sool iyo sanaagtan iyo ceergaabadan iyo aynabadan ku sheegay xagee ku taalaba wax jira ma waxa weeye wuxuu ilaaha markaan arko ilka la isdhigana ilaah ka baqbaan ilaaha markaan arko aaminay gabadh aroos dhigo yaan ilaaha buur markaan arko ayradii geel adduun dhaqabaan ilaaha markaan arko Khaatumo oo leh 3 gobol oo Soomaaliya sanaag iyo cayn leeyahay waxaan israa warnay oo dadka miyana miyir qabin horta toro dadkan waxaan loogu sheekeeyaa madadan miyir qabin ba xamar markay tagay xitaa wata xamar la soo yaabtay weeye markaan arko Saciid Cabdilaahi Deni wuxuu damacsan yahay ama reerka ma jeerteen loo yaqaan iyo Puntland maamul goboleedkaas wuxuu damacsan yahay uu rasaasiisa iyo ragiisa iyo dhiigiisa iyo lacagtiisa ku bixiyana waxa saawi kala war laayay markaan arko dhalinyarada in adeer halka maanta lagu waalay ee ku maranaysa xataa alaanka jabhadeynaysan waxaan yaaba waxaan saaha meesha ay ku socdaan tolaalkay ku calaamadiyeen idinkuna commentiga nagu reebi doontaan waxaad aragti ka qabto anigu ma caayayo hada reer kaftan weeyaan kaftan hufan ee bal idinku laftigiinu isweydiiyay dad waalan ha noqonine sayidka idin sheegay dad waarahan noqonay bal isweydiiyo meel calaamadsan ku socotaan dadku markay tartamayaan maxaa loo calaamadiyaa meel baa loo calaamadiyaa meel waa laga calaamadiyaa ka yaacaan
inta labada meelood haddii aad meesha ka wada tartan maaha moogta marka waxaan idin sheegay baanta laftigiisa bal horta gudihiinu shiro xageen ku soconaa bal isweydiiye qodobka haddii aan halkaa kaga imaado waxaa jira horumar ay samaysay wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka oo maanta wasiirkii wasaaraddaasi wuxuu dhex tallaabsanaya bariga waqooyiga Sanaag isagoo oo wadadii tabco ka dhagax dhigay wado 30 kilomitir oo uu joogay goobtii dhagaxa daloola ee baabuurtu ka dusi jirtay halkaas ay ku kulmeen dad ka mida deegaanka iyo golaha deegaanka ee degmada Ceergaabo iyo degmooyinka kale ee ku dhowdhow halkaas oo ay ka warbixiyeen wadooyinkaas inay muddadii u dambeysay dayac xagga dawladda ay qabto waxay uga ballan qaadeen wadada inay dayac tiri doonaan wasiirka iyo waftidii la socotay halkaas oo ay waliba ku helaan halayeen in ay ilaa wada xeebeeda ka soo qaadaan loo yaqaan mayd inay halka ka soo qaadaan waxay ila ahayd wasiirku sidoo uu sheegay ku talagal wado 80 kilomitir in meesha laga sameeyo aanay waxan waxba ahayn waan ugu hambalyeynaya horumarka markaste ay bulshadu ku talaabsanayso inta xagga bariga ka socotana Ilaahay inaga qaboojiyo dadku waxyaabaha ay ku farxi karaan waxa kamid ah horumarka waxyaabaha laga naxana waxa kamid ah dib u dhac markaste waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa in horumar gaadhno xukuumadda cusub ee imika bilaabantay inay wax ka bedeli doonto arrimaha imika waqti waaqacan taagan waayahay halka wasaaraddaasi iyadu wadada waa looga fadhiyaa sida ay ugu ballan qaaday qodobka markaynu halka kaga nimaadno waxa kale oo aynu istu taagaynaa shirkii gaashaamo xaguu ku dambeeyay shirkii gaashaamo wax wara yaa ka haya warka ugu dambeeyay ka soo baxay wuxuu ahaa in ay dhulbahantee gaar ahaan reer Buuhoodle waftidii laga sugayay xaggooda ay iman weyday halkaas oo aanay yeer iyo yuuq iyo waxay ku tilmaameen baaqasho iyo soo tigis midna aanu ka jirin wararkii u dambeeyana soo gaarayay waxa ay sheegayaan gudidii ka tagtay ee shirka loo igmaday ee ka tagtay dhinaca deegaamada SSB iyo meelaha loogu talagalay in nabadeynta laga dhaliyo way ku indhacasaatay ilaa iyo waqtigii loogu talagalay iyagoo ku yimi ayay haddana xataa alaan fadhiyaan iyagoo sugaya dhinacii kale ee nabadgelyada laga raadinayay waxa kale oo wafdi soo diray madaxweynaha Cagjar oo wafdi soo diray kala duwan oo laakiin heer deegaan ah waayahay cidda shirka gudoominaysa waa reer gaashaamo gaar ahaan garxajis way ku mahadsan yihiin inay shirka gudoomiyaan inay nabadda xarigeeda raadiyaan iyo in ay ka quusan waayeen oo ka daba tagaan waayahay iyo inay colaad ku taliyaan oo maanta yiraahaan colaad baynu wax ku doonaynaa labadaaba way u door leeyihiin sababtu tahay xukuumadda reer Soomaaliland maanta iyaga gacanta ku haya bal haddaba gudida ka tagtay SSB ee loo igmaday inay shirarka soo qaban qaabiyaan maxaa iyaga meesha ka yaala maanta mar haddii cidii loo nabadgelyada dhinacii laga sugayay iman ba waayeen maxaa ka yaala warwaan salaamaya dhammaantii subscribe YouTube-ka dadiga ilowday share gareeya barnaamijkaasi halka uu gaariyo commentigiisa idinka la ka raba waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bal in adeer haaya markasta in adeer wax diga ilowday